وهاك ساحب يال لما أنت الأد بعدين سلامي سوق رنتي شل أد بقرح بنا دقائق وين مرسمي بيتكوين ساحب يال شل واحد جارتي بقول واحد جارتي لبكون بيرنتي جارتي هذا بقول واحد جوكتا كون بيكسول على تي شل رنتي ساحب يال هاك في عم بيتي سميسي أفرلا تكسر قدام بي almost واحد سميسي 2.8 هذا سوق سوالف لكن حاله كلام كان فيني almost وحوي 3% وسحب يال دقائق ذي وحوي BTC sidoo kale saxba koonakii shalay dhaxay waxa kamid Solana 200 mi kartay 220 kartay runtii meel fiican bay sameysay Solana aad ba saxbiyaal u dhaxday koonaka saxbiyaal dhaxa sameeyay waxa kamid ah loo yaqaan Zui saxbiyaal meel fiican buu gaaray hadda wuxuu maray saxbiyaal $5 isbuuc dambeeyay 20% buu runtii saxbiyaal kacay sidoo kale Doge waa kacay Ethereum xoogaa dhaxa fiican bay sameysay marka saxbiyaal runtii shalay aad buu suuq u qurux badnaa gaar ahaan BTC بعد دقائق في عن رنتي سميستي مركز ساحب بيع كوسا لابتي بقولكم مركز دافتي رنتي اسبوع قدام يسوق سكليتي مركز دتكي سمي رنتي دي سي اس بيع قدام بي وشلي رنتي مانتي كل فائده في عن بهستان مركز بي تي سي بقولكي ودافتي مركز ساحب يال سوتش بي رنتي تاسو كنت حتى ساحب يال التكونس كبدن كون in dhaqaan saaxiib inta news ku galin waxa aan idin sheego iskuulkii waxa ku sameeyay qiimo dhimis waqti yar baa ka haray maadaama sana cusub la gaday 2015 dhammaanba courseska ugu horeysay cryptocurrency forex iyo dropshipping ugu horeeyaan waxa ku sameeyay qiimo dhimis 25% marka insha Allah laga faa'iideysto website-keena booqo WhatsApp kan wala xiriir kartaa haddii saaxiib ya news aan isla fiirin afar saac dambeeyay newsada dhacay horta article baan soo qornay fadlan waxa booqataa website-keena galabash.com gaar ahaan page-kan blog ku qoran tahay booqo article-kan aan soo gelinay oo ga hadlayna BTC ETF-da oo runtii sanad ku dambeeyay aad waxa weeye warar badan runtii ka jiray news badan ka jiray marka article dhameystiran baa ka qornay ETF-yada inaad fahamtid muhiim weeye waa suuqyada maalgashiga saaxiibayaal cryptocurrency ETF-yada BTC iyo Ethereum ugu weyn marka by the way soo akhriso in ka badan saaxiibayaal waxa soo galay 900 milyan baa soo galay ETF-yada waxa weeye dhowr kiibsad saddex bari ugu dambeysay marka article full dhameystiran weeye soo akhriso sidoo kale saaxiib hadii aan newsada ku socono ninkan waa murashax u sharaxan prime ministerka dalka waxa weeye Canada runtii waxa is casilay yarkii Justin Trudeau baa is casilay oo xilka iskaga tagay xalay marka ninkan musharax weeye ninkan marka crypto community aad bay u hadalhayaan waa pro bitcoin iyo pro crypto weeye sida ma taqaanaa madaxweyne Trump kala weeye waa nin loo marin saaxiib inuu ku guuleysan doono marka isla xalay wareysi jeediyay soo dhahay waxaan ballan qaaday in Canada noqoto caasimadda capital of crypto capital in noqoto buu ballan qaaday campaignkiisa 2022 marka hadda ragga ugu cad buu ku jiraa runtii suuqan ku guuleysan doono sidoo kale saaxiib yaal asoo inuu soo jiito dadka waxa weeye crypto community runtii saameyn badan ku yeeshay hadda madaxweyne Trump oo kale dadka soo saaray kamid ah codad aad u tiran buu ka helay crypto community campaign ugu daaqeen lacag badan ugu daaqeen sidii ninka XRP iska loo kale lacag badan buu ugu daaqeen inuu wax soo saaraan musharaxiinta ee crypto amsan marka isla wadadii buu yarkan hayaa shala saaxiib yaal dukaan buu tagay shawarmada lagu gado tahini reer Canada community soo galay taqaanaan dukaankan marka wuxuu ka iibsaday gacanta ku haysa ujeedaanba wuxuu ka iibsaday saaxiib yaal shawarma chicken buu ka iibsaday meesha ujeedaanba That's the shawarma. All right. Now if you could hold the mic for me while I make my purchase. So hadda marka wuxuu leeyahay qiimaha uu iibsanay satoshi uu iibsanay we're going to buy this shawarma with this Bitcoin. You ready? Okay. Hold on, I'm just creating your invoice. He's creating me an invoice right now. Now listen. biilku sameeyaa Make sure to include the tip in there as well. By the way, what is on this shawarma? Deliciousness. Deliciousness. An extra serving of deliciousness is exactly what we need. And by the way, do you use Canadian food when you make your shawarma? Is it Canadian source? Everything here is local, actually. Local, made in Canada, my friend. All right. All right. Send. 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 Done. Oh, I got it. You got the deal. marka saaxiib yaal saa u jeedaanba runtii video sameeyeen waa nin waxa weeye transaction buu already ku sameeyay shawarma chicken buu ku iibsaday waa ninkan marka uu murashax u sharaxay xilkaas dalka Canada runtii saaxiib waxa aad u soo badanayo waxa madaxda ugu sareysay waxa weeye dunida inay hadda waxa weeye bitcoin laftigeedu ay bomboninayaan sida hadda waxa Trump oo kale marka bullrunka waxa la leeyahay horta bullrunka ugu weynaa weeye sababaha ka dambeeyana waxa kamid ah Trump oo kale oo pro crypto pro bitcoin ba madaxweynaha dalka Mareykanka ah ninkan oo kale hadda ku jiro marka bullrunka meel fog inuu gaarayo baa loo marin doonaa
marka hadda ninkan waa murashax runtii xilka waxaa iskaga degay yarkii Justin Trudeau ahaa xilka uu ka tagay sidoo kale saaxiibayaal bishii December la soo dhaafay waxa la xisaabiyaa totalka shirkadda MicroStrategy Bitcoin iibsatay waxa noqotay saaxiibayaal 59,700 Bitcoin iibsatay marka runtii shirkadda MicroStrategy yarkii Michael Saylor iskala in Bitcoin aad u urursaday weeye markuu jaan salo marka almost 60,000 oo BTC kaliya wax iibsaday bishii December halka saaxiibayaal waxa ka cad in BTC aad loo urursanayo marka adiga san Roger ku sheegaba talan aan ku siisa tuushiga ururso Bitcoin iibso bilkasta 20-30 wax awood runtii iibso aniga runtii aad baan u iibsadaa qorshe ay ka tagsan looga teerama mid kale saaxiibayaal su'aal aad u badan dadku ay soo weydiiyaan waxa dhahanay suuqa waxa Bitcoin teenina faa'iido ka meena saaxiibayaal Bitcoin waa sidii diidiinka kala weeye waa long term investment plan way ta horta qorshaha ku darso marka waxa portfolio-haaga BTC lacag hadda ka xisaabtamin inaad ka hesho degdeg ah laakiin markii mustaqbal noqoto ka helaysaa marka mustaqbal aan baan ka hadlayaa BTC waa long term weligaa saaxiib BTC ka shakin BTC iibso oo ujeeda shirkadii dunida waaweynaa aad saaxiib loo aroos mid kale ogow supply bay leedahay muujada hadda 19 milyan iyo 800 kun baad banaanka yaalo 2 milyan baa hartay marka 2 milyan wala sanad badan baa lagu soo qodi doonaa 100 sano gudaheed baa lagu soo qodi doonaa marka chance weeye marka la soo qodo waa la kala aruursanaya marka adiga maadaama aad jeeb yarnahay mustari waxa awood BTC ka gado kala saaxiibayaal waa shirkii ka dhacay Tennessee madaxweyne Trump ka hadlayo video hadda la soo daayay. The reason could not be more clear because Bitcoin stands for freedom, sovereignty, and independence from government, coercion, and control. وجد saaxiibayaal Bitcoin ninkan kan beeka xilli ku jira weeye waa shirkiisii saaxiibayaal ugu dambeeyay oo ka qayb galay waxa weeye gobolka Tennessee magaalada Nashville marka yes saaxiibayaal soo qordi maanta aad buu u qurux badan yahay adiga newskaasi update-kaas jiray ugu dambeeyay marka adiga insha Allah tartiibtaada adiga Trump hada isbuucii xoogaa oo har inuu xaroodo 20 January buu xaroonaya buranka ugu fiican markaas la qiyaasay saaxiibayaal inuu bilowmo aad baan saaxiibayaal salaami oo maasantii